waxaan si rasmi ah ugu wareejin doonaa maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo mas'uuliyiinta u sarreysa munaasabadda kala soo qayb galaya. Soo dhow maayir. aad iyo aad waxaan idigu mahadnaqayaa sida sharafta leh agaasimihiinna goobta waxaa lagu gartaa ninkan la joogay markuu ka tegaayo xitaa ka ishayeen wuxuu idhahdaa war nin wanaagsan buu ah waa astaamaha goobta lagu garto yacni qofka xunna waxaa lagu gartaa xitaa hadduu wanaagsanaa way sii maagaan run ahaantii annaga ka dawlad hoose ahaan dawladdeeda hoosaaba idigu dayano markay doorashadu dhacdaanu ka tagno kolley annana sidaasee malaa noo sii ammaani aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa waxaan leeyahay maxamed yuusuf soo dhowow waxaan leeyahay mukhtaarna nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan si rasmi ah ugu wareejin doonaa maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo mas'uuliyiinta u sarreysa munaasabadda kala soo qayb galaya. Soo dhow maayir. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وافقنا لما تحب وترضى إن وزير كحجينك أنا كسمها وزيرك وزيردا ورفافنتا لبدا قاسمة حلك لك الوريقي يا قاسمة محمد يوسف يا قاسمة مختار محمد علي برساب كحجينك قبل كمرودي شيح لطليها وزيرك لمان قاسمة يا شقود ka socda wasaaradaha qaranka shaqaale weynaha agaasimo waaxidada inamiyaha hablaba ururada saxaafadda labada wasaaradood iyo ururada saxaafadda wasaaradda warfaafinta dhammaan shaqaale weynaha mas'uuliyiinta qaranka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kolley bacda salaan anaa hadhay looma hadle maxaa hadhay baa loo hadlaa rag fara badan iyo hablaba halkan hadalka waa layga wada horreeyey qof waliba waxa uu sheegay labada agaasime soo shaqaynayay kana shaqaynayay ummaddan xukuumaddii ka horraysayba mid waliba xil inuu soo qabtay haddaan yar dul istaago mukhtaar runtii mukhtaar maalintii u horraysay nin ilaahay u naxariistay aanu saaxiib ahayn oo isna adeer u haayo سعيد حجافلو لورناي ayaa igu yidhi war ninkii yaraaye mukhtaar baa madaxweynihii loo geeyo waa madaxweyne siiraayo waxaan ku yidhi war mukhtaar mayn ina maxamed cali maasha allah baa yidhi war marun dowladda balqaarka naga yaryarna hala keeno aad baan ugu faraxnay nin yar buu ahaa wasiir ku-xigeenka isagoo agaasimaha qorshaynta ee berbera ayuu igu yidhi maalintii u horraysaanu safar u wada baxnay waanu yaabnay hoos baanu dadka ugu lahayn waa agaasimihii guud annagaaba sheegin gaadhnay buu yidhi wax yaroo bucbuca buu ahaa buu yidhi yo xasan nala socdaa runtii nin waana kaa maasha allah kartidiisii iyo dulqaadkiisii iyo raginimadiisiiba waa taa keentay inuu maanta ummaddami ay jeclaan in loo heeso in loo gabiyo in inta hadashay inta wakhtigu ka dhacay ay ka badan tahay wuu mutaystay runtii mukhtaar annaga wasaaradda arrimaha gudahaanu ka wada shaqaynay maadaama dowladda hoose iyo wasaaradda arrimaha guduhu line ministerkaygii tahay haddana howlaha guud baanu ka wada shaqayno iyagana dhulka iyo wax iska soo gallo runtii aad waa shakhsi aad u wanaagsan mukhtaar waa nin intaa ku sheegteenba leh iyo in ka saayidaba wasaaraddaa uu tegaynaa waa wasaarad nasiib leh aniga lafteeduna waan ku hambalyeynayaa mukhtaar saaxiib iyo habra wadaagba intaa ka bacdi maxamed yuusuf haddaan dul istaago maxamed yuusuf ismaaciil runtii maxamed waa nin shakhsiyad leh waa ninkaa dowladdu aan ku hambalyeynayo isagiiyo mukhtaar iyo ragga dhigoodaaba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi in uu u garto inuu dhalinyar fara badan siiyo waxaan garanayaa anigoo mar dadka la doortay
iyo dadka la magacaabay baan u yaraa anigu waxaan garanayaa waxaan maalintaan maayir ku-xigeenka noqday 28 jir baan ahaa yuusuf kaasaan isku daanay aniga iyo agaasimaa iyo guddoomiye barasaab ku-xigeenka iyo raggaa maanta dhowr iyo 30 kale baanu nay alxamdulilah iyo maxamed yuusuf laftiisa isku daabaanu ne ama labadayna waxaa lama sheegee maxamed yuusuf markii laga dhigay aad iyo aad baanu ugu faraxnay muddo 3 sannadooda ayuu sannadba hal step kor u soo qaadayay maxamed wasaaradda waxaa laga dhigay biyaha haddana isla sannadkii 19ka waxaa laga dhigay 19kaa laga dhigay haddana wasaaraddan macdanta iyo tamarta haddana dhammaadkii waa arkaysaan 20ga maxamed waxaa laga dhigay agaasimaha warfaafinta aad iyo aad horta wasaaradduna nasiib bay leedahay mar hadday maxamed heshay oo run ahaantii dee marka xaggii kale laga eegana kolley ingiriiskaa beri yidhi dadka af soomaaligaanu idin baraynaayo waxa la yidhi qolo reer hebel la yidhaha baadna baraysa kolley maxamed qoladii buu ka soo jeedaa hadal nin looga baqayo maaha idinna uu idin difaaci qarankana uu ku difaaci halkan run ahaantii intaa wasaaraddana waxa aan leeyahay waa wasaaradda somalilan ugu muhiimsan waxa jooga dad fara badan maalin aan mikrofoon ka hadlaya baa yidhi somalilan dalalka kale saxaafadday dheerta waa run saxaafaddu waa midi laba af leh yacnii haddii xagga wanaagsan loo adeegsadana alxamdulilah weeye haddii xagga xun loo adeegsadana dee dawlado dhisan bay dumisaa runtii halkaa ka soo bilowdeen waxaan ku hambalyaynayaa wasaaradda shaqaalaheeda waxay soo taagnaayeen iyagoo bilaamushahara waxay soo taagnaayeen iyagoo qof kastaa magaalada dabadeeda uu ka yimaado oo aanay lahayn gaadiid soo qaada waxay u soo adeegeen dhib fara badan aan yaraanna laakiin waxaan u soo taagnayn iyadoo halkaa garoonkaa timacadde dhinaciisa idaacadda uu bahal laga keenay berigii qaxii bahalkii yaraa esnamtu ay haysatee dadnaa runtii ilaa iminkana bahalkii wuu iska yaallaa maantana waa taa arkaysaan injineeradu dul fadhiyaa kombiyuutarrada maalinba tallaabay soo qaadaysay maalinba isteeb bay soo qaadaysay saxaafadda somalilan bartii u wanaagsanayd bay maraysaa meel somalilan caalamka halka laga iibiyaa waa wasaaraddiinnan ee caalamka u sheegtaa somalilan hadday tahay wariyayaasha iyo hadday tahay hablaha qaaliga ee fannaaniinta iyo hadday tahay iyo abwaanadaba runtii oo dee gurayo aanan yar iga weynaaba joogo abwaankaa weynoonu walaalannay aad iyo aad waxaan idigu mahadnaqayaa sida sharafta le agaasimihiinna goobta waxaa lagu gartaa ninkan la joogay markuu ka tegaayo xitaa ka ishayeen wuxuu yidhahdaa war nin wanaagsan buu ah waa astaamaa goobta lagu garto yacnii qofka xunna waxaa lagu gartaa xitaa hadduu wanaagsanaa way sii maagaan run ahaantii annaga ka dawlad hoose ahaan dawladdeeda hoosaa bay idigu dayanoo markay doorashadu dhacdaanu ka tagno kolley annana sidaasee balaa noo sii ammaanay aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa waxaan leeyahay maxamed yuusuf soo dhowow waxaan leeyahay mukhtaarna nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu